Gudiga madaxa Banaan ee Doorashooyinka Qaranka isagoo tixraacaya 1 warqadda sumadeeda ahayd 226 xariiqin xaga ba 10/19 oo ka timid xoghayaha guud ee golaha shacabka 2 qaraarka qabashada doorashada buuxinta tixraac lambar ga xariiqin ba 10/12/17 ee uu ansixiyay golaha shacabku 3 hanaanka iyo xeerka hirgelinta doorashada dadbaneed ee 2016 tixraac lambar 38 4 go'aanka Gudiga madaxa Banaan ee Doorashooyinka Qaranka ee ku xusan tixraac lambar Gudiga madaxa Banaan Doorashooyinka Qaranka xariiqin 28 2019 Gudigu wuxuu ku dhawaaqayaa inuu qaban doono doorashada buuxinta kursi ka bannaan golaha shacabka ee deegaan doorashadiisu tahay gobolada waqooyi laguna qabto doorashadiisa Muqdisho. Wuxuu sidoo kale ku wargelinayaa odayaasha dhaqanka ee ku jiray liiska 135 oday dhaqameed ee hoggaanka u haya beesha Ciise Dalool Hoorane ee uu matalo kursigii uu ka geeriyooday Allah u naxariistay xildhibaan Cismaan Cilmi Boqore in ay u soo gudbiyaan xafiiska Gudiga Doorashooyinka ee magaalada Muqdisho liiska 51 erga doorasho si waafaqsan qoondada foomka diiwaangelinta ergada kuna soo gudbiyaan muddo ku siman 7 cisho gudahood oo ka bilaabanaysa 24 bisha Maarso 2019 kuna eg 31 bisha Maarso 2019 saacada soo gudbinta liiskuna waa 9 subaxnimo ilaa 3 galabnimo ama 3 saac subaxnimo ilaa 9 saac galabnimo sidii qofba sidoo u yaqaan oo aysan ku jirin maalinta Jimcaha ah. sidoo kale Gudiga madaxa Banaan wuxuu ku wargelinayaa musharaxiinta u tartamaysa kursigan in qabashada araajida iyo diiwaangelintu ay bilaabanayso 24 bisha Maarso 2019 kuna eg 31 bisha Maarso 2019